ayaa maanta ku tilmaantay fal nasiib darro ah falal xadgudubyo ah lagula kacay dhowr dumara kuwaasi oo qaarkood ay u dhinteen falalkaasi loo geystay wasiirka ayaa waxay sidaasi ka sheegtay xuska maalinta xuquuqda aadamaha oo lagu qabtay magaalada Hargeysa haduu yahay faraxmayn ama kursi haduu yahay gacan qaad oo dumarka oo aan waliba xusayo labadii bilood ugu dambeysay in laba dumar la dilay oo waliba baastoolada lagu dilay runtii gacaha gacanka hadal kaliya ahaa waxba maaha laakiin deeqda laga jaray oo yeeshan caruura leh midna ay ahayd ilmihii urada ugu horeysay inantii inuu madaxa ka joogtay ninkeedii marka runtii waxaynu gudaabinaynaa waxa weeyaan bulshada way jiraan waxaasoo dhami laakiin waxaad moodaa inaynu dhaqan iskaga qaadanay iyagoo la leeyahay waxaasba wax iska jiri jireen maxay dumarku camal uga dhigteen imanka runtii wax la bilaabaaba waxa weeyaan qofkii ciduma bilowda adduunku hadduu bilaabay inaguna aynu leenahay war dhaqan waliba wax xun iyo wax wanaagsan buu leeyahay dhinaca kale wasiirka cadaaladda ee Soomaaliland Axmed Xasan Cali Casoowe ayaa isaguna shaaca ka qaaday xukuumadda Soomaaliland ay ku maamustay maalintan saamaxaadda iyo inay ooda ka qaaday dhalinyaro tiro badan oo daadoodu ay u dhaxayso 15 jir ilaa 18 jir kuwaasi oo ku xidhnaa qaar ka mid ah xabsiyada Soomaaliland wuxuu munaasabada tan ee maalinta xuquuqda adduunka ee 10 Disembar ee 2009 ee waxay dawladdu ku maamustay maalinta tan in la cafiyo da'yarta ama caruurta ku jirta xabsiyada Soomaaliland dhammaantood in laga soo daayo oo lagu maamuso maalintan ayuu madaxweynuhu ku maamusay wareegtada ku soo saaray taasina waa bishaaraadii sheegay waxa munaasabadaasi iyaguna hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda qoyska iyo gudoomiyaha xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland